munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa dufcaddii labaad ee arday ka qalin jebisay dugsiga dhexe iyo kan sare iyo sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay aas-aaskii munaasabada Umulqura ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay culimaaddin aqoonyahan bahda waxbarashada waalidiin mas'uuliyiinta munaasabada Umulqura iyo marti sharaf kale munaasabada ayaa waxa wax lagu baraa in ka badan 300 oo caruura kuwaasi oo la baro tarbiyada islaamka xifdinta quraanka kariimka barashada shariicada islaamka iyo waxbarashada maadiga intii xafladda ay socotay ayaa waxa dadkii goobta ku sugnaa oo ay kamid ahaayeen waalidiin aqoonyahano ay ku dheeraadeen waxbarashada iyo faa'iidada ay leedahay inaad wanaag badan qabateen ayaa marqaati ka nahay waxa aad qabateen imiraha soo saarteen marqaati ayaan ka nahay wixii horena waan aragnay shaqo hadii la qabto wanaageeda iyo khayrkeeda waa la arkayaa marka waxa aad qabateen waa maragma doonto weeye aabbayaasha noole alla deystayo ilmahaad dhasheen anfac iyo aqoon inta ay rabaan anna waan rabaa ogsoonaada oo taa uurka geli marka aabbayaashiina nool ilmahaas ay khadiijiye asxaabteeda ay gacanta badan siiyeen dhammaanteen way nooga baahan yihiin arrintaas lagu baraarugo waxa weeye wanaaga iyo khayrku wuxuu u baahan yahay in dhulka lagu rido oo biyo yar lagu waraabiyo markaana la sii daba socdo oo la toosiyo la barbaariyo jazaakallahu khayr baan leenahay walaasheen inta kala shaqaysay oo ustaad Suhayb ugu horeeyo oo maamulkii iyo hawl maalmeedka fulintiisii iyo shaqooyinkii iyaguna sidaan arkay u qurxiyay Sheekh Abdaxaya Sheekh Aadan oo kamid ah culimadii madasha ku sugnaa iyo maamulaha munaasabada Umulqura ustaad Suhayb Ahmed Aadan ayaa goobta ka hadlay marka munaasabada Umulqura daakhiliya dhinaceeda ay ka soo dadaashay jahliga way dhaawacday laakiin wali wuu nool yahay sirasqa iyo ku jira inta kalena ha si dhameystireen si uu jahliga u baxo umadeena tacliin ay wada gudto sidoo kale haddaan wax yar in taabto xogta munaasabada tirada form 4 ka sanadkan baxayso tiradooda waxay gaarayaan 22 arday 17 wiil iyo 5 gabdhood waa dareemi kartaa dad inta soo dadaalayay doonta dad fara badan ayaa saaraa laakiin inta ayaa u soo dhabar adeegtay ilaahayna waafajiyay sidoo kale tirada ardayda fasalka 8aad ka gudubtay imtixaankii gashayna waxay gaarayaan 67 arday tirada wiilasha 49 arday iyo tirada gabdhaha oo ayagana gaarayaan 18 arday dhammaana ilaahay fadligii ardayda 8aadka hal arday oo dhacay kuma jiro gudoomiyaha guud ee munaasabada Umulqura Khadiija Maxamuud Maxamed ayaa ka sheekaysay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay aas-aaskii Umulqura waqtiyo badan oo kala duwan oo culeysyo badan jireen aan soo wada marnay saaki marka micnaheenu ma aha kuma fadhiyo inaa maanta waafaanayna waxbaan qabanay oo 10 sano wax soo heynay macnaha nagu ma aha ujeedadeena waxa ay tahay oo wax qabadkeena maanta uga hadlaynaa inaan u mahad celino ummadii tirada badneed ee juhdigan dheer nala soo gashay ee maaragtay dhinacyo badan noogu kaalmeysay ummadaas aan waxaan doonaynay inaan idhaahno jazaakumullahu khayr meeshii aad barnaamijkan aad shalay nagala bilowdeen maanta halkaan uu maraa alxamdulillah Maxamed Ali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho